Hi and welcome, my friends. Maanta waxaan idiin wadaa labadan eray la yiraahdo quantifierska sum iyo any. Sum waxaa loo adeegsadaa jumladaha positive-ka ah. Anyna waxaa loo adeegsadaa questions and negativeska. Sidoo kale sum marmar qaar waxaa lagu arki karaa positive-ka. Sum waxaa loo adeegsadaa magacyada especially marka ay plural yihiin iyo kuwa magacyada especially kuwa la yiraahdo uncountable nounska ayaa la adeegsadaa. Sidoo kale any pluralka la adeegsadaa iyo uncountable nounska. Number 1, we use some in positive sentences. Some waxaan u adeegsanaynaa positive sentenceska. Tusaale, I have waxaan haystaa some tea waxoogaa shaah ah. We'd like waxaynu rabnaa some magazines waxoogaa magazino ah jaraa'ida. Here is some cake halkan waxoogaa doolsho ah ayaa yaallo. So sida jumladaheena saddexdaba ka muuqato saddexdoodaba waa wada positive. Number 2, we use any in questions. Any waxaan u adeegsanaynaa su'aalaha. Tusaale, is there any cheese? Ma yaalaa wax burcad ah. Cheese waa farmaajo. Do we have ma haysanaa any biscuits? Wax biscuit ah ma noo yaalaan oo ma haysanaa. Number 3, we use any in negatives. Any waxaan u adeegsanaynaa diidmooyinka. Tusaale, I don't have ma haysto any money wax lacag ah. There aren't ma yaalaan any apples wax tufaax ah. There isn't any milk wax caano ah ma yaalaan. Okay, sida ka muuqato saddexda qaybba waxaan rajeynayaa inay tahay in si fiican loo fahmi karo jumlado kooban oo macquul ah. Haddii aan u gudubno some numberka afraad, we use some when we offer things or ask things. Some waxaan u adeegsanaynaa markii aan dadka wax siinayno, offer samaynayno, yabo samaynayno, qof wax ugu deeqayno. Sidoo kale ask for things markaan wax weydiisanayno dadka ayaan adeegsanaynaa ereyga some. Tusaale waa kanaha, would you like some juice? Xoogaa cabitaan ma rabtaa? Waa offer. Waayahay, can I have some bread? Ma heli karaa waxoogaa rooti ah. Ayadana waa asking for things. Inaa shay weydiisato ayaa loo adeegsadaa. Waayahay, waxaan rajeynayaa haddii aad videoga ila soo gaartay halkan, fadlan videoga ha kasoo exercise-kan ka shaqeey adigoo ku buubuuxinaya some iyo any. Haddii aad wax badan ka faa'iiday, fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro subscribe leh. haddii aad hore noola joogtana like ta waa dhankaaga, waxayna caawinaysaa inuu dad badan gaaro. aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. waxaan rajeynayaa exercise inaad ka shaqey doonto. waayahay, aan kaala shaqeeyo bal. Number 1, qaabkan ayaan uga shaqeeyey. I don't have ma haysto any cake. marka ereyga any diidmooyinka ayaa lagu arkaa sidaan hore ugu soo hadalnay. Would you like some pizza? Ma rabtaa waxoogaa pizza? marka some su'aalaha request office-ka ayaa lagu arkaa. waa caadi iyadana waa la fahmi karaa. waayahay, there are some oranges. positive waaye, waxaa yaala waxoogaa orange ah. Do you have any crisps? Do you have any crisps? ma haysaa wax crisps ah? Okay, crisps waa bahal yar oo laga diyaariyey baradhada. Crisps sidiisa aan soo celinaynaa maadaama Soomaali ku habboon aanan haynin. Okay, I'd like some soup. waxaan u baahanahay waxoogaa maraqa. I'd like some soup. waxaan u baahanahay waxoogaa maraqa. saabuunta waa soap, tanna waa soup. Okay, aad u mahadsan tahay. waxaan rajeynayaa videoga wuxuu ka mudan yahay inaad
siiso. haddii aad nagu cusub tahay oo halkaan nala soo gaartana fadlan nagu soo biir. waa channel loogu adeego dadka u baahan barashada luuqadda Englishka qaab yar oo kooban oon badnaynin. ma sameyno video ka badan 10 daqiiqo. soo dhawow oo nagu soo biir. thank you very much. saaxiibada haddaa u gudbisana inay ka macaashaan ayaa suuragal ah, kuwa kugu jaamacadda iyo haddii aad iskuul dhiganayso iyo haddii aad si caadiya aad luuqadda Englishka u baranayso. thank you very much.